بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ربا إنان إذن دول مرو وحي كسو كرداي حالدها كوفيد 19 ودن كين أفرتني سيديد دي ساعة وقدم بيسي وحالة باري سدح بقول إيو كونتوني ساقال قفوت حالة عصب سو كردتين وحاواي لحدن اللح قف أو بوزيتيف كوفيد ودن كين وحا رق كونتون إيو شن وحا هوين كو طبعا goobaha ay kala joogan 66 qof positive ka noqotay waxay kala tahay Somaliland waxa jooga 46 ayaa laga helay qofood Puntland waxa laga helay 12 Banaadir waxa laga helay 5 Koonfur Galbeed waxa laga helay 2 Jubbaland waxa laga helay 1 da'da dadka laga helay cudurka waxay u dhaxaysaa sida soo socoto 20 sano iyo ka yar boqolkiiba waa 5 labaatan ilaa iyo 39 boqolkiiba waa 59 afartan ilaa iyo 59 waxa waaye 22 qof 22 boqolkiiba 60 sano iyo ka weynna waxa waaye boqolkiiba 15 tirada guud ee dadka laga helay waxa waaye 2579 tirada geerida soo korortay waa 2 qofood hal qof oo Somaliland iyo hal qof oo Puntland Ilaahay ha u naxariisto jannadina ha ka waraabiyo tirada guud ee dhimashada waxay isku gaaraysaa 87 qof tirada bogsootay maantana waxa waaye 27 qofood 48 saac ugu dambeysay inta bogsootay waa 27 tirada guud ee bogsootay waxa waaye 559 waxaad u jeedin in meelo badan oo Soomaaliya kamid ah cudurkii laga helay xaalado cusub oo positive ah micnaheedu waxa waa cudurkii wali wadanka waa ku jira meelaha qaarkood waxaad arkaysaan inuu yar degay faafida cudurka laakiin waa wax mar walba nooga baahan in la taxadaro cudurkan waa cudur u baahan in la xakameeyo dhibtiisu wata Ilaahay naga haayo waxaan faraynaa mar walba bulshada in la taxadaro in ma aragtay goobaha ciriiriga meelaha oo dadka ay ku badan yihiin la iska yareeyo oo aan la tagin in laga foojignaado in ma aragtay aad la isugu dhawaado in qofka markuu banaanka u baxay afka u xirto gacmaha dhaqashada in aad loo badiyo oo saabuun ama waxyaalaha looga hortago jeermiska mar walba lagu faraxasho in la iska yareeyo in meelaha ciriiriga iyo baabuurta ciriiriga mar walba la iska yareeyo oo laga taxadaro dadka cudurrada raaga qaba ama chronic disease ka qaba waxa mar walba lagu waaniyaa taqaatiirta wasaaradda caafimaadka ee cid allaale cidii yaani cilmigeeda leh oo ka warbixisa oo ka waanisa dadka ay kula talisaa aan ku celcelinayna in dadkaasi gaxanaana gooni la siiyo dhalinyarada oo ah da'da yaani cudurka aad ugu badan yahay wadankeena la kala qaado waxaan ku waaninaynaa inay taxadaraan inay raacaan tilmaamaha taqaatiirta ay bixinayaan si cudurka isaga dhowraan waxa kula nool dad waxa kula dhashay dad waxa kula saaxiib dad bulshada inteedii kala ku dhex nooshahay ha u gudbinin cudurka oo iska ilaali naftaada ka ilaali saaxiibka ee qofka aad jeceshahay iyo bulshada dhan waxa ka saaran waajib gaar ah in qofkii ma aragtay naftiisana uu ka taxadira bulshada inteeda kalena uu ka taxadira si cudurkan u fidin waxa la sameeyay juhdi badan oo dawladda wasaaradda caafimaadka ay sameeyeen sidii looga hortagi lahaa cudurkan waxa la sameeyay wacyigelin aad u weyn walina socota u baahan in la sii xoojiyo mar walba inaan la isdhiganin oo la dhigin cudurkan magaaladan waa ku yaraada annaga waa naga baxay waxa laga hadlayaa mar dhow in diyaaradihii la furo oo goboladii la aado waxa laga hadlayaa sidoo kale in adduunka intiisa kale oo tartiib u furaayo isu socoshadii aan annaga naftirkeena ka xayirnaan si aan u gaarna meeshaasna waa inaan dhageysanaa tilmaamaha taqaatiirta iyo wax allaala wixii يعني si hore loogu socdo ay tilmaamayso in la sameeyo waxa loo baahan yahay taxadar qaas ah dadka markay safrayaan in safarka aad loo kala dheeraado hadii diyaaradaha la furo waxa la sameyn doonaa shuruudo badan oo marka la safrayo looga baahan yahay qofka dawladda waxay aad isugu taxaluujiso sidoo kale in baaritaanka kor loo qaado wali waa yar yahay laakiin waxaan isku dayeynaa oo aan ka shaqeynayna oo aan qalab raadis iyo tababaro siinayna taqaatiir badan gobolada meelaha aysan aan sida sahalka loo gaari karin ama aan la dhigi karin mashiinada waaweyn ee yaala magaalada Muqdisho Garowe
boosaaso iyo hargeysa in iyagana la geeyo qalab kale oo gene expert la yiraahdo oo loo isticmaalo baaritaanka TB-da in la geeyo taasoo sahli doonta in cudurka baaridiisa kor loo qaado marka cudurka baaridiisa kor marka loo qaado qofku markuu xanuunsan yahay waa inuu isxakameeyaa bulshada inteeda kale iska xakameeyaa tilmaamihii iyo daaweyntii wixii loogu talagalay takhaatiirta uu raaca dadaalka ma yara waxaan ka codsanaynaa bulshada mar walba inaysan isdheganin oo aanan dhihin magaaladan wuu ku yaraaday sababta oo Soomaalida waa dad isdhex socdo sida bulsho weynta meel kasto ay adduunka ka joogto waa in yani iskuuladii in dib loo furaa nolosha inay dib u soo noqoto oo ma aragtay xafiisyada lagu soo noqdo haddii aan taxadarka la muujinin waxa laga yaabaa wax inay faraha ka baxaan dadaal weyn iyo juhdi weyn oo la sameeyay ilaahayna aad noogu garab galay waa mahadiis ayaa intaan lagu soo gaaray lagu xakameeyay ilaahay waxaan ka baryaa inuu cudurka naga yasiro aafadiisana naga haayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa mahadsantiin